Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad inagala socotaan Sakayari 07 Journal. Maanta waxaan doonayaa inaan halkan idinkaga soo gudbiyo 5 ilaa 4 qodob isla markaana ah sir ku hoos duugan WhatsApp-kaaga. Waxaan ognahay qof walba ee qad haysta maanta inuu isticmaalayo WhatsApp-ka isla markaasina uusan ogeyn macluumaadka WhatsApp-ka ku hoos duugan. Waxaan halkan maanta idinka tusayaa 5 ilaa 4 qodob isla markaasina aad ka bogan doontaan. Cid allaale ciddii doonaysa in fiidiyowga xiga uu soo gaaro waxaan ka codsanaynaa inay subscribe dhahdo isla markaana gambaleelka furato. Ku soo dhawaada haddana barnaamijka waan bilaabeynaa. Waxaad ku dhufanaysaa WhatsApp-ka. WhatsApp-ka markii aad ku dhufato waxaad tegaysaa 3 dhibic ee dhanka midig ee kore dhanka searching-ka u dhow. Markii aad ku dhufato waxaad tegaysaa settings. Kadib waxaad ka dooranaysaa account. Kadib waxaad ka sii dooranaysaa midda ugu koreysa ee privacy. Okay, waxaa noo soo baxay page-kan. Waxaana ku kala qoran last seen, profile photo, about, status. Okay, hadaynu ka hormarno last seen-ka. Last seen waa waqtiga adiga kugu dambeysay ee qadka aad ka baxday. Haddii aad ku dhufato everyone waxaa arki doono qof waliba. Haddii aad ku dhufato my contacts waxaa arki doono dadka adiga lambaradooda ay kuu save gareysan yihiin. Nobody haddii aad dhahdana ogow cidna ma arki doonto. Midda kale waxaad ogaataa adigana ma arki doontid dadka kale ee adiga kugu jiro xilliga ugu dambeysay qadka. Waa ku sameey adigana ha lagugu sameeyo. Ka gudub. Waxaan u gudbaynaa profile photos. Profile photos waa sawirka ama picture-ka ee qofka uu saarto WhatsApp-kiisa. Haddii aad sidoo kale everyone dhahdo waxaa arki doono cid kaste. My contacts haddii aad tirahdana waxaa arki doono oo kaliya cidda adiga markaas kuu save gareysan. Haddii aad nobody dhahdana cidna ma arki doonto sawirka markaas adiga kuu saaran. Waxaa xiga about haddii aad waxaa waaye qoraalka qofka uu saarto WhatsApp-kiisa. Qof kasta markuu WhatsApp-ka sameysanayo sawirkan uu saarto wuxuu ku qortaa qoraal ay markaas asaga uu jecel yahay. Qoraalkaas haddii aad everyone dhahdo qof kasta wuu arki doonaa uu akhrisan doonaa. Haddii aad my contacts dhahdo sidoo kale waxaa arki doona oo kaliya dadka adiga kugu jiro. Haddii aad nobody dhahdana cid arki doonto qoraalkaas ma jiro. Adigana sidoo kale ma arki doontid qoraalka dadka kale u saaran. Waxaan u soo gudbaynaa status. Status-ka haddii aad status-ka waxa waaye sidiisaba video ama sawir ama qoraal aad dhigto status-kaaga WhatsApp-ka. Haddii my contacts aad dhahdo waxaa arki doona oo kaliya dadka contactigaaga adiga ah ee xiriirka kula leh kuu save gareysan. Haddii aad dhahdo my contacts accept kaliya waxa waaye dad gaara ka xir. Haddii aad dhahdo tusaale aad ku dhufato fictaas waxaad ka xiri doontaa dad gaara ee dadka adiga kugu jira kamid ah. Waxaad ku sii dhufanaysaa tusaale qofkan oo kale aad ku sii dhufanaysaa fig ayuu saaray guduudan haddaad fictan blue cagaarka ku sii dhufato qofkaas waad ka xiraysaa. Marka hadda aan ka noqdo waa tusaale haddii aad dhahdo only share with waxay ka dhigan tahay kaliya u ogolow oo u fasax dadka aniga aan ogolahay. Waa ku dhufanay sidoo kale qofa isaga dhufanaysaa ficta waatan haddaad fictaas cagaarka ku dhufato kaliya qofka u ogoshahay ayaa daawan doono fiidiyowgaas aad soo dhigtay ama sawirkaas aad soo dhigtay. Ka soco. Waxaan u gudbaynaa halkan ay ku qoran tahay read recepts. Read receptigu waxa waaye qofka markii aad qoraal u dirto adiga waxaa arki doontaa WhatsApp marka qof qoraal ugu dirto fig ayaa koreyso. Hal fig haday korto qofku qadka ma fadhiyo. Haday 2 fig korto qofka qadka waa uu fadhiyaa. Haddii midab uu koro buluuga qofku wuu akhristay fariintaada. Marka haddii aad dhibicdaan halkan ka qaado qofka adiga qoraal kuu soo diray ma garan doono in aad akhrisatay iyo in kale oo midabka buluuga ah ama kalarka buluuga ah uma kori doono. Wuu ka shakinayaa in akhrisatay iyo in kale.
balse haddii aad adiga saarto fikta haddaad saarto si hadda aniga ii taho kale, qofka fariinta haddii aad akhrisato way u sheegay adigana sidoo kale. balse mid ogow, haddii aad ka qaado uusan arkin inaad akhrisato fariintiisa iyo in kale, adigana midaad u dirto ma dareemi doontid inuu akhristay iyo in kale, xataa hadduu akhristay. halkaas hoosena ay ku qoran tahay blocked contacts waa dadka adiga aada baloogtay, dadka adiga kugu jiray islamarkaana aad ka heli weysay oo aada iska baloogtay. halkaas ayuu ku jiraa, dib waad kaga soo codsan kartaa oo qofkii lambarkiisa iyo sawirkiisa ku jiro, dib lambarka halkaasi waad kaga soo qoran kartaa. marka aniga ma raba hadda inaan blockadkan ku dhufto, waayo qof ayaa ii saaran inaan baloogay, qofkaas ma doonayo in lambarkiisa aan soo bandhigo. sidaa daraaddeed kor ayaan ka sharaxayaa. ciddii ka heshay videogan like ha saarto, ciddaana ka helin dislike ha saarto. ciddii janalkan ku cusub oo aanan macaamiil la ahayn, waxaan ka codsanaynaa inay subscribe saarto, gambaleelkasa furato si fideoyada xigo ay usoo gaaraan. ciddii fikir gaara iyo fikrad iyo tala haysana hanala wadaagto, oo xagga hoose ayaa uga baaqayaa ha kusoo qoraan fikradooda. guud ahaan waxaan idinkugu baaqayaa in aad sheer dhahdaan oo aad gaarsiisaan asxaabtiina si ay uga faa'iidaystaan ayagana. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.